dowladda Eritrea ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqday inay aqbashay in ciidamadeedu ay kala baxayso gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya iyadoo dalka ku yaala bariga Afrika uu qirtay inuu qayb ka ahaa colaadda gobolkaasi ka taagnayd. Eritrea uu saaran yahay cadaadis caalami ah oo sii kordhaya ayaa kaga dhawaaqday arrinkan warqad ay u qortay 15 dal ee xubnaha ku ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay taasoo jimcihii barta internetka ay ku daabacday wasaaraddeeda warfaafintu. Sofia safiirka Eritrea fadhiya qaramada midoobay ayaa warqadda ku sheegtay in Addis Ababa iyo Asmara ay ku heshiiyeen inay ku dhawaaqaan heerkoodii ugu sareeyay ee ciidamada Eritrea ay kaga baxayeen isla markaana si dhaqso ah dib loo geeyo cutubyo Itoobiyaan ah xadka la aaminsan yahay ee caalamiga u dhaxeeya labada dal. Eritrea ayaa gacan ku siinayay ciidamada Itoobiya dagaalkii ay kula jireen xisbiga TPLF oo Itoobiya soo xukumi jiray muddo dheer kaasoo soo bilowday bishii November ee sanadkii hore. Dowladda Itoobiya Eritrea ayaa muddo bilooyin ah dafirayay in ciidamada Eritrea ay ku lug lahaayeen dagaalka gobolkaas taasoo ka hor imanaysa warbixinta ay wariyeen dadka deegaanka diblomaasiyiin iyo qaar ka mid ah dadka shacabka iyo militariga Itoobiya. laakiin ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa qirtay bishii Maarch iyadoo Asmarana ay ku dhawaaqday jimcihii oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom.